xilligii dambe oo xukunkii Siyaad Barre laga soo bilaabo 1980 ilaa 1990 uu dhacay 10 sano waxyaabihii maaragtay dhacayay haday noqon lahayd in yani xukunadii ama ururadii mucaaradka ahaa yani gadooday ee diiday xukunka Maxamed Siyaad Barre ee joorfalka ku dhisnaa oo yani runtii si safmara u ciqaabay يعني جبهته مارتي شيك مارتي كوكا عباليه كدشين او اس دي اف كميت هاي runtii يعني جورفلا runtii aan diiwaan galin runtii laakiin aad u qaraar badan oo maartay waliba kala sii xanuun badan ay kamid tahay midii maartay sheek ee ka dhacday Somaliland oo yani oo diyaarada u adeegsadeen Maxamed Siyaad Barre waxay muujinaysaa markii inta la isku daro in Maxamed Siyaad Barre uu qayb ahaan ama si uu ahaa mid kamid ah hogaamiyaashii ugu kadeedka badnaa ee qaaradda Afrika soo mara ee aan marnaba xoogaa waxa jirnaha ama diirnaha u sameeynin yani xukunka Soomaaliya marka ayaa la kooyla sano Maxamed Siyaad Barre dalka maartay uu madaxweyne ka ahaa mar wuxuu ahaa maartay sheek hogaamiye horseede yani hawliyaqaan wax hor la muuqda dawladnimada Soomaaliya ku soo kordhiya haddana geesta kale wuxuu ahaa yani naftiyada aan waxba u hambeynin xeradii maamulka dalka iyo maartay awrkii heriidii sacunay yani waa dareemi kartaa awr markuu heriidii sacuno waxa kaliya u haraahay wax maartay jiri karaa ma ahan marka Maxamed Siyaad Barre wixii ayatiin dalkan u galay waxaan maartay aan ku soo koobayaa inuu isagu la tagay sheek oo maartay ay ka dambeysay eeda badan uu dalka ka galay ama ma kanu dadka Soomaaliyeedba uu ka galay oo tan maartay hadii jeer ku soo bilaabayeen ay ka ahayd balamihii uu qaaday inuu qayb ahaan uu fiiyay 69kii maartay dalka markuu qabsaday oo 60 sano ugu horeysay xogaa dalku meel fiican gaarsiiyay laakiin wixii ka dambeeyay xukunkiisa iska noqday kaadir qabiil u taagan in yani maartay dantiisa uu ku ilaashado maartay beesha uu ka dhashay wixii ka dambeeyay 1990 waxay iska muuqataa inay ahaayeen wax maartay deebaaqtan ah oo yani ragii la lulamay Maxamed Siyaad Barre oo ay maartay jabhadu maartay hogaaminayeen nimankii hogaaminayeen ahaa runtii aan aniga aan u bixiyay manaxyaal falan oo yani aan iyaguna maartay Maxamed Siyaad Barre inay ka daran mooyee aan maartay aan ka rawnaanin waxyaabihii ay sameeyeen laftigooduna ay noqdeen waxay kaga daydeen Maxamed Siyaad Barre oo ay ruuxan iska dhaadhiciyeen ninkoo military ah ninkan siyaasadda isku soo jirteen ciidanka aad ka wada tirsaneedeen in kulli sano dalkan iska maamusha yani waa wax u fudud adigoo ma aqoon maartay in hebel ah oo reer hebel ka dhashay in tabtii Maxamed Siyaad Barre u yeelo kala yeeli kartaa ama kuwa saashinka waxay ahayd meel Soomaali lagu loolamay oo yani lagu tijaabiyay yani in Maxamed Siyaad Barre yani somehow looga adkaado leeri maartay xukunkan maartay sheek in badan Soomaaliya diyaar uma ahan inay yani hoos taagnaato xukun kalisnimo ah geesta kale ay si cad u diiday yani in Maxamed Siyaad Barre askari ka dambeeya aanu maartay sheek xukunka dalka kala wareegin maartay waxyaabaha maanta wanaaga aanu haysanay ku ka tahay natiijada ka ratibantay maartay burburkii dalka in maanta markaan dawladnimada Soomaaliya fiirino ay tahay wax consensus ah oo shis lagu wada yahay oo beel walba Soomaaliyeed maanta iska dhex arki karto nidaamka dawliga ah oo runtii aad looga maartay diirsaday waxyaabihii maartay sheek kulli sano Maxamed Siyaad Barre dalka ku maamulayay buugan marka aad soo bandhigaysay meesha falcelin ku saabsan hab qoraalkiisii xaqiiqatan ayaa buugu yani buug walba la sameeyaa wuxuu leeyahay yani dad laba dhinac iska taaga dad bogaadiya oo somehow yiraahdo yes waa buugan u baahnayn ee dad yiraahdo maya buugan xogaa maartay critics iyo waxba ku jira oo maartay somehow maartay qabiileysan ama aragti kale xogaa yani naqdiya laakiin sida xaqiiqada waxay tahay buugan qof walba ku akhriyo uu magaca maartay ugu horeeyo maartay ku soo dhaco maartay sheek indhihiisa uu arko yani aadi ayatiin waxa uu sawirmay durba yani in buugan uu kulminayo يعني شرية غير يوناق يحمان با وحي محمد سياد برre ودلك جيستي وانا مهم ايان هذه جرين الحساء يعني كويس عشان كي كهر سجاي لحدا كي يمكن محمد سياد برre دلك مارت وهبينك ولا مارتي في جنبي سمينه يي Soomaaliya wuxuu ku jirtay yani laba daramid dooro maxaan ka wadaa somehow bulshadii waqtiga jirtay waxay ka daaleen maartay xukunkii rayidka ahaa oo labadii maartay madaxweyne ka horeeyay Maxamed Siyaad Barre rayidka ahaa يعني دلك أكون قامين ديمقراطية ناسبيلة إيو قبيلات إيو مسق أو دلك هير جاري إن يعني قبل قبيل لوكال جابوا مارتي قرنين سوالي بربورتو هير يعني سؤال اللي حدن كي أي سكسو تاجن دورش هذه دعادي سيدات الأفر حزبي وأدري مكرتا أو ليبا مقع قبيل قاركود الهاين عبد الناصر لكن إماشي محمد سياد برre سما وحي إهد بدبادو أدبن ودي ذا أركتدا محمد مارت شيء الغادة أورما وكشة بوجي سويلية وحوها حرية أنا حلا وحوها بدبادية محمد سياد برre وقتها أماني سؤال اللي حدن كي والله بحنا وحوها بدبادية لكن برجي وحكم كده جاي كويس عشان كي وديده يعني إنه سنة بده ونبدأ حكم كوريجيو وحوها بربرية سكعت مركب وانيكي إلك أقضي قرنية الصومالية
kuwii ka dambeeyey maaragtay jabhadihii ahaa USC ba haweenaatay iyo hogaamiyaheeda Maxamed Faarax Eedin waxay ahaayeen kuwii aasay qarannimadii Soomaaliya maaragtay qabriga ku hubsaday maaragtay wax roon oo maaragtay sheek dhaama Maxamed Siyaad Barre keeni waaye taa keentay in isla sanad maaragtay kadib sanad guuradii waqtigaas Allah uu naxariistay Abshir Bacadle uu ka gabiyay oo yiri yani duqii doona ducaan ugu darawaana dilateene marka waxa muhiimka aan rabna waxay tahay inaan cidna tooshka ku ifin yani maaragtay si ma kano dhala'aana balse aan ifin karno eedihii iyo qaladaadkii oo aan waliba ku ciidaarayna maqaar ilduufaad maaragtay inay maaragtay ay ka ahaayeen xukuumadii waqtigaas ama ma kano hogaamiyaashii waqtigaas laakiin ay qasab tahay in la isweydiiyo had iyo jeer Soomaaliya waxa ka habaabay in la fahmo Soomaaliya konton sano waxa ma kano ay isku haysato ay suuqa balaadahane waa in si maaragtay dhaba oo maaragtay qoto dheer loo qaadaa dhiga يعني سماري وحمان شري خير وحي كعنكو دلكان كقلي إن لا فهم وقت جاني وحي رنتي أيان نسوا رجلي كرتها إني نديب أقول لعبان حكم دنبه أو كلي تلسا حكم دنبه أو مارتي حكم إسكوريجيس إيو طبعا إن يعني خيرات جار مارتي دل كليها إن قلا جار أي وقت ما كانوا شيء أي يقولون غطي أنت كلام أو أنت كان غضان مرتي وحكوا له حسن من أيان اللي أجادو إن بوب كان يبي اللي غضان إيو نوع والبوب ما كان دلكان صامري had buu xeelaayeen kala heerar marka yani waxyaabaha maanta dhacaya hadii la fiiriyaa yani iyagoo maaragtay magac dawladeed xambaarsan ayay soo dhici jireen ama ahaat waqtigii raydka ama ha noqoto waqtigii gacanka marka dadku markii intaas xoogaa soo wada qiimeeyaan dadka wax akhriya badinkood yani waxay maaragtay fahmayaan in buugani kulminayo labada aragti in yani qasab tahay in la isla qiro yani xumaan wixii ma kan dalkan ka dhacay maaragtay la isla gudoomo يعني لقول شيء إن يعني أي هايين وح مارت وقت جا منين إني دعان هذا كذب من مارت لو قلت لقله سي مارت لو جبر عند ما كان وحان فرنت عن وضاهي أبوك عن كل حسة واحد هاي يعني إن نفهمنا تاريخ إني هو روحي نقص عادي سه إن يعني مستقبل عنكو أمين كرنوع الصومالي هذا أحربنا إني ذلك مارت وصل لابط أدبو محسن هاي كاسي وحوها سكرية حسن محمد قراقة بوغا محمد سياد برا آدي آياتين وحو مرتين نوغو ها برامج كينا بندقة تي فيغا يونيفرسال